kooxdan howlwadannada caafimaad oo isugu jiray dhakhaatiir, kalkaaliyaal caafimaad iyo shaybaadhistayaal oo muddooyinkii ugu dambeeyey howlgalla caafimaad oo bilaasha ka waday degmooyinka gobolka Togdheer ayaa wejigii saddexaad ee barnaamijkaasi caafimaad ugu amabaxay 4 degmo oo kala ah Qurlugud, Baledhiig, Gowsaweyne iyo Dhanaano oo ka kala tirsan gobolada Togdheer, Saraar, Buuhoodle iyo Sanaag. Howlgalkan caafimaad ayaa ahaa mid lagu garab istaagayo looguna gurmanayo dadka ay saamaysay abaartu ee u baahan daweynta. Dhakhaatiirtan oo ahaa diranayaal bulsho oo si mutadawacnimo ugu shaqaynayay hooyada iyo dhallaanka ku sugan degmooyinkaasi iyo tuulooyinka hoostaga ayaa waxaa soo qabanqaabiyey guddida abaaraha gobolada bariga Somaliland oo ay hormuud u yihiin cuqaasha bariga Burco. Dr. Muuse Baaxeer iyo Faarax Xirsi Diiriye oo ka mid ah mas'uuliyiinta hawshan fulinayay soona qabanqaabiyey ayaa faahfaahin ka bixiyay howlgalladan ay qabteen wadeenna muddooyinkani. waxaanu maanta u baxaynaa safarkii saddexaad ee taakulaynta dadkeenna abaaraysan ee dhibaataysan. safaradii hore ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa loo baxay iyadoo abaar iyo kuleel badan u jiro. maanta alxamdulilaahi rabbil caalamiin iyadoo oo uu curtay gugii roobabkii guga ay curteen meelo badan oo Somaliland ay ka deenayeen u baxayna. safarkani wuxuu ka kooban yahay 8 gaari iyo 40 shaqaale caafimaad oo dhakhaatiir iyo shaybaadh iyo neers isugu jira. waxaan ilaahay ugu mahadnaqay subxaanahu wa tacaala inuu ina waafajiyey camalka khayriga ah in aanu ayaamihii ay ugu darnayd aanu is abaabulnay aanu u baxnay aanu soo taakulanay dadkeenii tabaalaysnaa. in ilaahay baan ugu mahadnaqayaa marka koowaad iyo mar labaadba. waxaan iyadana aad iyo aad ugu mahadnaqayaa guddiga abaaraha ee gobolada bariga odayaasha isxilqaamay ee ka qayb qaatay safarka salaadiinta gobolka oo iyaguna door weyn ka qaatay wasaaradda caafimaadka oo meel walba oon tagno MCA-yadeeda iyo xanaanooyinkooda lagu soo dhaweynayay. waxaanu sidanaa qalabkii shaybaarka, waxaanu sidanaa dawooyin bilaasha. insha Allah tacaala guuran oo caawa ku galeynaa degmooyinka aan u soconno. waxaan kaloo mahadnaqayaa tiimkan dhakhaatiirta waaweyn ee gobolka Togdheer ee aad maartay aadamay ragiigu oo shaqooyinkoodii waxoodii iska dhigay si ay dadka ugu soo adeegaan oo ay markii saddexaad ay tahay oo maantana caawan ay ku wajahan yihiin 4 magaalo degmada la yiraahdo Baledhiig, degmada Qurlugud iyo degmada Dhanaano oo gobolka Saraar iyo Gowsaweyne oo gobolka Sanaag. 4 meelood ayay u soo adeegi doonaan. waxaan kaloo mahadnaqayaa dadka muxsiniinta ah ee iyaguna maartay abaabulka kale iyo qarashka iyaguna maartay ku darsaday maartay noo soo dhiibay si dadka loogu soo adeego oo maartay shidaalkii iyo dawooyinkii waxyaalihii imkaaniyaadka loo baahnaa oo dhan soo bixiyeen. iyagana waa u mahadnaqeen. waxaan leenahay jazaakallahu khayra jazaa. ilaahay meesha ka soo saarteen khayr ha idinku bedelo waana la wadi doonaa insha Allah intii la awoodo. iyaguna dhakhaatiirtuna waxay u darban yihiin inay hawsha sii wadaan oo ay waqtigooda iyo nafahooda iyo adduunkoodaba ay ka jaraan. aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa dhakhaatiirta qaaliga. Allah barakeeyo. Suldaan Yuusuf Cabdi Cawad iyo Suldaan Maxamuud Guuleed Mire oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in howlwadeennadan ay si bilaash ugu shaqayn doonaan hooyada iyo dhallaanka ay saamaysay abaartu kana mid yihiin dhakhaatiirta ugu teeda wanaagsan gobolka Togdheer. waxaanu halkan ka ambabixinaynaa tiim dhakhaatiir ah oo fidinaya gurmad caafimaad meelo horena ka soo sameeyay degmooyin hore oo Qoryaale ka mid tahay, Warcibraan ka mid tahay, Dhoqoshay ka mid tahay, Ceelal ka mid tahay. maantana u baxaya 4 magaalo oo kala Baledhiig, Qurlugud, Gowsaweyne iyo Dhanaano. tiimkaas oo ka kooban 8 gaari iyo 40 dhakhaatiir iyo isugu jira shaybaarkii laabkii iyo waxa weeyaan maaragtay shaqaalihii tiimka ayaanu halkan ka ambabixinaynaa. tiimkaas oo markaa waxa weeyaa mutadawiciin oo isxilqaamay shaqada tatawuca ee ay dadkoodii u qabanayaan iyadoo oo waqti markaa kulul lagu jiro kaliila. ilaahay mahadi iyadoo oo roobabkii gugona ay markaa dalka meelo badan oo kamid ah ilaa shalay ilaa maanta ay ka curteen. halkan waxaanu ka ambabixinaynaa tiimka dhakhaatiirta. tiimkaas oo ka kooban 40 qof oo dhakhaatiirtii waaweynayd ee cuscuslayd ayaa baanduul ka yihiin, hormuud ka yihiin oo shaybaarkooda wata oo dawooyinkoodii wata oo u baxaya
ku baxaya isxilqaan ay isxilqaameen oo ay dadkooda u gurmarayaan gurmad caafimaad ay fidinayaan tiimkaas dhakhaatiirtaasoo aanay ahayn markii koowaad ay baxeen marar horena baxay waa u ducaynaynaa waa u hambalyaynaynaa ilaahay ha idin barakeeyo gabagabadii waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay guddoomiyaasha degmooyinka Dhanaano iyo Qurlugud iyagoo u mahad celiyey guddida abaaraha gobolada bariga Somaliland iyo salaadiinta bariga Burco anigoo ah guddoomiyihii degmada Dhanaano Maxamed Axmed Muuse waxaan halkan uga mahadnaqaynaa marka hore ilaahay mahadda labaad waxaan halkan uga mahad celinayaa guddiga abaaraha ee qaybta bariga Burco odayaasha noo soo diray dhakhaatiirta Somaliland ka mid ah oo xaalayto halkan loogu yimi kuwaasoo dadkii daweynaya oo aad aragtaan kuyuga loo haysto iyo baahida loo qabay runtii in dhakhaatiirtaasi timaado aad iyo aad bay u mahadsan yihiin dhakhaatiirta iyo odayaasha soo dirayba degmada Qurlugud waxaan soo gaaray dhakhaatiir tabaruca oo sida dawooyin dad badan bay u shaqeeyeen aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa Cabdirashiid Timir maqal muuqa caalamiga ah ee Home Cable TV magaalada Burco